waxaan isleeyahay caawa waa munaasabad aad iyo aad qiimo iyo qadarin u leh meel aad u qurux badan ku taala aan rabo inaan marka hore u mahadceliyo reer Galmudug oo qof waliba uuna filaynin markii aan 2 maalmood gudahood ku nidhi waxaan rabnaa inaan dhuusamareeb isugu nimaadno madaxweyne Galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyo kulligoodna ay safar magaalada kaga maqnaayeen inay qaateen inay qaban karaan gobashaas oo shirka ay marti gelin karaan waxaan rabaa reer Galmudug inaan kulligood u mahadceliyo madaxweyne golo wasiiro baarlamaan iyo shacabba sida isxilqaan kale ee ay ku jirto dadnimadii lagu yaqaano waayahan ka qasnayd ay dib ula soo noqdeen dadaalka ay muujiyeen iyo sida ay arrintaa u sameeyeen waxaan rabaa inaan aad iyo aad idinka mahadceliyo waxaa abaalmarin ah inay mar labaad iyo mar saddexaad dhacdo dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 ogaada waa isxilqaankii faraha badnaa waxa laydin siiyey wayna ku dhismaan dowladaha iyo magaalooyinkuba midaana qaado waliba waxaan ku talinayaa martida aad guryaha seexinaysaan intaad ka daysaan waynu islaqaanaa reer dhuusamareeb laga habeen baa hotel ku dhisi kartaana hoteelo dhisto dadka xoolaha kala hada intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo isagu sabab u ah sida saaxiibaday sheegeen inuu shirkani noocan ugu qaybsamo in fact dulqaad iyo hogaamin uu muujiyeen ay ahayd in halkaan la isugu yimaado shirkan uu ku qabsamo madaxweyne waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsantahay adiga ra'iisul wasaaraha iyo saaxiibada kale waxaa laga yaabaa dadku in badan markaan hadlayo aad u soo fiirinayaana waxay rabaan inaan wax kala sheego waxaan idhi gacan geel jire hoosa loo dhaqo hoos baan wax u dhaqnay markaa waxaana weynoo hagaagsantahay insha allah taana sidaa loo qaato waayo haddii ta guud ay hagaagto waxaad ogaataa wax kastoo gaargaari meesha uu ka baxaya marka waxaan aad ugu faraxsanahay muddadii yareedeen joognay sida hooseen u wada hadalnay iyo guud ahaan xaaladda guud ee waddanka aragtida laga wada qaatay waxaa jira waqtigaan maanta ku jirno warmurtiyeedka waxaa ku filnaa intii uu akhriyey ninkii akhriyay warmurtiyeedka Cabdinuur laakiin waqtigan waa naqaanaa oo waqtiga la kala fakado ee sifada lagu sheegay maalinta qiyaamaha oo kale ay ka dhacayso oo qof waliba uu dhinac u boodayo xildhibaanadana kuraasta aad bay u jecel yihiin meeshuu geli war looma yaqaano isdaba orod baa jira waa marka warka dadka beenta loo kala qaado waxaan ku raacsanahay saaxiibkay Siciid waraan bahasha ka wada shaqayno oo soo wada dhaweyno oo isla wada wadno oo aan garanno waddanka aan ku noolahay midka uu yahay sida uu ku badbaadi karo xaaladda uu ku jiro waxa laga bixi karo waxay tahay inaan isla qaadano asar qof waliba ha qaato aragtida ah waddankaani waa kuma xageen u soconaa maxaan ku badbaadi karaa labada qof ka ugu yar haddaad isxumaataysataan dhibaatadu way soconaysaa waxaan rabaa in la is wada cafiyo kulli wanaag la isu wada faro haddaan maanta nidhaahno maxaan isu qabnaa qof waliba qof kale waxa laga yaabaa inuu wax sheegto laakiin waxaa ka horeysa inaan u wada turno haddii dadku ay caloosha wax isugu qabaan dhibaato badan baa waddanka gaaraysa in la is cafiyo lagana shaqeeyo midnimadaas waddanka iyo waddankeenu inuu gaadho ka baxo meeshuu hadda joogo uu tago meesha ugu dambaysa gaarayna haddii ilaahay yidhaahdo taasina niyad furnaan isa saamixid iyo caloolfayoobi bay ku iman karaysaa waxaan intaa ku darayaa shirkani wuxuu ahaa in mar hore laysu yimaado waayo wax badan oo mar hore la qaban lahaa baa hadda dib inoogu dhammaaday oo dib u dhacay isu imaatinka iyo in wax la isla falanqeeyo wax la isla fiirfiiriyaa waxay saldhig u tahay isfahanka wada shaqaynta wax isla garashada iyo horumarinta waddanka hore loo sii gelayo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo madaxda kale dowlad goboleedyada waxaan rabaa inaan idhaahdo habato wada hadalku habato wada socodku kulamadu habateen si dadku haddii la kala baado warkaan arkaynana dadka aad loogu kala qaado xumaan iyo wax badan baa soo baxaya marka in mar walba la isxog og yahay oo xogaa la isu yahay waxtar badan bay leedahay shirarkan oo kalena wax badan bay ummadda lafteeda ay u yihiin waxtar waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad idinkaga mahadcelinayaa kulligiin dadaalka halkan qof waliba soo xilqaamay baarlamaanka waxaan rabaa inaan u sheego waxaad garataan
waddanka aan joogno iyo mas-uuliyadda idin saaran iyo xaaladda jirta waxay ku fiican yahay waddankani kugusan in la yidhaahdo meeshaan hadda ka bilownana waa meel fiicanna waan gaadhsiin doonaa khayr badan baan idiin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.